shirkoodan jaraa'id ayay kaga hadleen gudoomiye ku-xigeenka degmada Cadaado Cabdixakiin Maxamed Cali Shilin iyo sidoo kale taliyaha saldhigga booliiska degmada Cadaado Maxamed Cadceed Cusmaan. arbushaad xalay ka dhacday saldhigga booliiska degmada Cadaado taasoo sahashay in maxbuus ciidamada ammaanku ay gacanta ku soo dhigeen uu fakado. taliyaha saldhigga booliiska degmada Cadaado ayaa sheegay howlgallo si wadajir ay u fuliyeen ciidamada booliiska oo kaashanaya qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida inay ku soo guuleysteen maleeshiyaadka arbushaada ka sameeyay saldhigga booliiska degmada Cadaado sidoo kalena ay dib saldhigga ugu soo celiyaan eedeysanihii ay u sahlanaatay in arbushaadaasi uu ku baxsado. sanaad marka saldhigga lagu soo xiray oobiga la geeyay intii oobiga la marsiinayay ayaa wax ka daba timid ciidamada maleeshiyada ay soo weerareen saldhiggii waxaan u suurto gashay ninkaas inuu isqabad dheer ka bacdi oo baxsado maantii sanaas waa la raadiyay jid dheer lagu bixiyay kulli aniga iyo taliyaha qaybta booliiska waxa ka soo baxnay shuurjugma liira maantii dadka deegaanka wax u maqneen shaqo arrimaha laftirkooda oo dhibka ka kacay wadadii la galay dhibka ka kacay xalintiisa ku maqneen meeshaas miyiga jirnay maanta waxaan qabsatay marka oo aad u xumaanay in anaga u taagan ina xalino dhibaatooyinka dadka deegaanada haysta iyo dhibaatooyinka habeen maalin ka maqan goobihii anaga booliiska lagu talagalay waxa sameynay in dheeriyo ilaa magaalada ka shaqeyno in ayadii lagu soo weeraro ayadii la soo daamaro aad u xunahay maanta waa ka fal celinay waan la daba istaagay aad anagu mahadsanyihiin ciidamada na soo gaaray sida ciidanka madaxtooyada sida ciidanka kooylaatanaad oo ayaguna meel wada joogno furinta wada joognay oo qolal meesha ka soo dhaqaaqday maanta arintaas waxa waaye waa arin u istaagnay waana ka meel gaarnay gaarigii xalay saldhigga soo weeraray hadda saldhigga dhex yaala cid laga qarnayo cid maanta la leeyahay lama soo qaban ma jirto maxaabiista way xiran yihiin aniga taliyaha saldhiggana waxa cadeynaya maxbuuskii xalay saldhiggaas ka baxsan inuu hadda ku xiran yahay. gudoomiye ku-xigeenka degmada Cadaado Cabdixakiin Maxamed Cali Shilin ayaa shirkiisa jaraa'id ku xusay inaan marnaba la aqbali doonin cid garab istaag u muujisa kuwa sida uu sheegay doonaya inay ka baxsadaan gacanta sharciga. dadka dhalinyarada ee hubeysan ee gaadiidka dagaalka wata waxaan uga digaynaa inay garab istaag u muujiyaan qof faldambiyeed loo haysto hubka dalka uu wada yaalaa insha Allah waxa la heli doonaa in gacan dawladda ku aruuro laakiin inta ka horeysa waxaan rabnaa inaan uga digno dhalinyarada hubeysan ee gaadiidka dagaalka wata inay garab istaag u muujiyaan qof eedeysana ah oo la rabo in cadaaladda la horgeeyo taas dambiga ka dhalanaya marka xalay wixii halkan ka dhacay dambi culus ay ahaayeen shaqaqaas dadkii geystay gacantaan lagu soo dhigay hadda ciidamada amniga gacantooda ku jiraan waxaan rabnaa inaan u mahad celino kale qaybaha kala duwan ee ciidamada ammaanka ee Galmudug ciidamada madaxtooyada taliyuhu hogaaminayo taliyaha qaybta 12aad taliyaha qaybta gooda booliiska iyo saraakiil kale iyo runtii taliyaha saldhigga oo karti badan muujiyay howlgalkaas qaybtu sidoo u dhigay iyo qaabka u manage garay karti badan muujiyay